سوري صاحبي codkayga hadii la maqlayo ii soo sheega live ka xirka hore ku jira dabcan ismaqli weyne hadii ay maqlaysaan ii soo sheega dabcan codkayga hadii idin soo gaaray okay waa mahadsantahay farta waa mahadsantahay okay waa mahadsantahay nasruddin waa mahadsantahay wixii su'aala marka waa ka jawaabi doonaa dabcan Abdullahi Dacda fadhiya safaaradda Nairobi ayaa lagu qoray qoladii 2024 ahay Nairobi ka soo qoran وما صنت عبد الله صاحب نيو نيروبي سندي لو حالكيدو اسكا ليتay ترام واغو joogay ilaa markuu baxayo safaradii kale oo shaqaalaha shaqadii gaabis iska ahayd haddana saas ay tahay aan kale safaradaha kale la sharci tahay qof walba kiiskiisa ku xiran tahay sida uu qancaan inkastoo ay mudnayd in laga cararo marka hore kiiskaaga inaan safarad kale laakiin haddana kuma dhahayo absolutely kuma dhahayo waa denial of safaradaas haddaad tagto ma ku dhihi yani kuma lihi oo shuruudihii waxay ku marsiinaysaa safaradaha kaleba ay ku marsiin lahaayeen marka hoob inaad kasoo heli doonto fiisaagan ay ku siin doonaan dabcan dad ay siin way jiraan sanadkan oo hab iska koobnaadeen oo shaqadooda iska gaabisa iska ahaato dhibkii ugu weyn oo safarada Nairobi ka jira ma ahan kaliya fiisaha ma bixiyaan kaliya ma dhibka ugu weyn waxa waaye kiiska markuu ka soo dhamaado KCC oo read interview uu yahay waqti badan waxa qaadanaya inuu safarada Nairobi soo gaaro because holding ay gelinayaan priority badan uma lahayo dadka DV lottery-ga waxa laga marka family based immigrants dadka ama dadka isku dacwoonayo iyo caseskaas aad ugu badan sababtoo safarada Nairobi waxay u shaqeysaa Soomaalidii Kenyaankii dadka Uganda ka imanaya ay ku maraan Burundi oo kale ama Rwanda wadamada iska mid ka mid ah South Sudan ay ku maraan so waad dareemi kartaa capacity intaas leeyahay safarada hayso priority badan ma u laha lottery oo kiiskaaga horeeya laga yaabaa in tender qaadato in interview oo mar hore kaalintii noqday so culayska fiisa bixinta waxa uu sii dheer ayada limitation yani ay ku hayso dadka TV-ga ama yani priority badan uma leh taas oo iska jirta hopeful insha Allah inaad adiga kiiskaaga uu kaalintii noqday oo safarada uu soo gaaray ama ama balan hesho inaad fiisa ku siin doonaan aad ma santahay laakiin dadka okay ma santahay codka yar gaaban sanadka marka dadka insha Allah selecting noqon doono ay kan aad uga fiirsadeen safaradaha ay aadayaan dad badan soo bixi doono oo selecting leeyahay doona insha Allah habeenkan caawa East Africa caawa markay tahay dabcan natiijada soo bixi doonta marka caawa dadka guuleysan doona qofka markuu select noqdo waxa laga rabaa hatta case fog helo case number fog hatta duu helo amid waa inuu siiyaa meesha uu ku mari doono foomku buuxinaa safarada inuu doorto safarada anaga ahaan waa la talinaa qofkii rabo foomkii iyo wixii laga caawiyo dabcan nagu soo laaban doona oo case-kiisa waan kasii caawin doona laakiin safaradaha ay tahay inuu ku maro qofka waa inuu aad u raadiyaa Asia oo kale safaradaha ku yaala India meelahan kale Malaysia Bangladesh wadamada khaliijka haday tahay Qatar haday tahay Sacuudiga Dubai safaradaha way iska intaas way si kala rooyihiin okay هذا waxaan rajeynayaa maqashaan codka iska yar hooseeya dabcan hopefully inay maqlaysaan hadda waxaan rajeynayaa si fiican la maqlo
su-aalahaas kasii ka koobi doona qof walba xura su-aasha si laga jawaabo dabcan ahmiyadaan siin doonaa waana soo koobaya intaas oga bixi doonaa safaaradda qof walbana safaaradda xulashadeeda iyo qof barnaamijkan khabiir ku ah ama dad hore u maray safaaradihii ay mareen waxaas dhan waa inuu raadiyaa caawilota result waayaas soo bixi doonaa insha allah caawa 7 fiidnimo markay tahay waqtiga geeska afrika soomaaliya 7 fiidnimo bacda maqrib insha allah natiijada xilligaasay diyaar tahay okay gabadhan waxay tiri aniga wiil walaalkii ah ayaan u xiriiriyay sidaan u fiiriyaa waxaa sameynaysaa code number lagu siiyey dabcan confirmation number lagu siiyey markaa xareynaysaan kii haddaa haysatid website-ka aad ka xareyso ku laabo qaybta hoose status check statuska fiiri insha allah waa fahmi doontaa passport la-aan ma tegi karaa hadduu soo baxno hadduu soo baxo step 1 waxaa waaye formka DS260 la buuxin doonaa formkaasna passport la-aantiis ma buuxin kartidbo so markaa selected ahdid lagu dhaho haddaad passport haysan step ugu horeeya qaadis waxaa waaye immigrationka aadid haddaa waddanka maqan tahay safaaradda kugu dhawaad tagtid aa passportka samaysatid waa mahadsantahay abdullahi xuriyaada waa mahadsantahay saaxiib aniga haddaba waan u sheegay dadka selected noqonaya ka taxadara safaaradaha anigoo Djibouti islahaa ku maray automatic la iga tuuray Nairobi ama sunta Cabdulla sax waaye qofka inuu ka fiiriyo waa ka fiirsado safaaradda uu ay tahay inuu ku maro still haddii kiiskaaga hadda uusan quarantine noqon hadda laftirkaaga KCC la hadal waxaa dhada ii bedel interviewga Djibouti igu celiyada ama waddan kale ka dhiga hadda aadi kartid hadduusan kiiskaaga weli process marin uu quarantine noqon laakiin qofka hadda cusub ee selected lay doono safaaradda Nairobi safaaradda ugu liito aad bay u xun tahay hal iskaga daa qofka Soomaaliga ah markuu selected noqdo automatic wuxuu kusoo qoraa Nairobi qofka xusle ka bedelo yani u bedelo Djibouti ama meel kale hadana waxaa arkaysaa interviewgiisi automatic inuu soo noqonayo oo mararka qaar ay kusoo celinayaan Nairobi marka waxaa la sameeyaa markaa formka submit garayso Djibouti ama waddan kale qoratid double check la sameeyaa KCC email loo diraa waxaa la interviewga xagee way fiirinayaan waxa ku dhahay interviewgaaga waxaa waaye Nairobi hadana waxaa ku celinaysaa waxaa leedahay aniga Nairobi waa ka wareegsaday DS260 waxaa ku cadeeyay inaan Djibouti ku mari doono ama waddankii aad ku mari rabtaa u sheegaysaa soo xogtaada kale case numberkaaga iyo magacaaga saxan iyo taariikhda dhalashada markaa u raacisid emailkaas fadlan ii bedelan aad dhahdid automatic way ku bedelaan waxay ku leeyahay okay interviewgaaga from Kenya waa kaaga bedelnay waxaan kaaga dhigay halkaas waa haddii aad ka cabsanayso inay haddana bilaadana waxaan process gareynayo Nairobi qofka Soomaali markay arkaan automatic way kusoo celinayaan Nairobi kusoo celinayaan marka waa su'aal fiican saaxiib waa arrin muhiim waa mahadsantahay okay haddii baa Sacuudi wax ku maray ma la arkay Afrikaan kale dabcan way jirtaa dad Soomaali oo Sacuudi ku nool way jiraan oo ku maray Suudaanta kale aad ay ugu maraan dadka Suudaan u dhashay kale Sacuudi aad ugu maraan maadaama Khartoum processkeeda aydan sida Nairobi kale tuuska aad u leeyahay marka laakiin qof Soomaali lagama waayo dabcan Soomaali badan Sacuudi ku nool dad badan oo select ay jiro way ku maraan dabcan South Africa okay ayadoo lagu maraa dabcan safaarad Mareykan meel ku taalan aan qabanin ma jirto interview oo la xiriir DB وسال إيه مقلا هذا اللي ما مقلا عاد كي ما وصيولي عاد كهذا لما قالوا حنك بدلها مركز على إيش هذا Djibouti lagu mari karaa safaarad aan lagu mari karin male Djibouti wali meel ugu roon ay ku jirta hadda oo 2 sano la soo dhaafay markay Nairobi xirnayd meelkay Nairobi dadka aad u dhibaataynaysay Soomaalida Djibouti aad bay qaadanayaan wasiina fiisaas last 2 years wuxuu soo baxay caawa 7 fiidnimo okay codka kor u qaad okay codka koraan u qaadaa hadda wali maqlaaya dabcan saan filaa
Tanzania Dar es Salaam waa lagu maraa horta safaarad walba waa lagu maraa laakiin waxaa la rabaa inaad taxliilisid safaaradana website-keeda yani aad gashid DV safaarad walba ay qabataa case oo lottery wax ku saabsan laakiin inaad ogaan kartid safaaradaas maxay ku fiican tahay safaaradaas oo kaleeto tahay Iran safaaradaha anaga ahaan hadda tala ahaan dadka aan siinayno waxa waaye safaaradaha wadamadan hadda Djibouti oo kale qofka Soomaaliga Djibouti awuron iyo haddii qofkii awoodi karo wadamada Asia inuu aadi karo kaleeto laakiin taasna ma dhihi karno ilaa qofku inuu wadan hebel aadaa because you don't know qofkii fiisahaaga cidda ku siinayso waxaan wax iska xag alana ku qoran weeye laakiin safaarad walba rule waxay ku marsiinaysaa loogu talagalay programkan shuruudihii ka rabtaa Nairobi oo kale kaliya in xogaa gaabis uu ka jiro Addis Ababa de shaqadeeda waa iska Ethiopia dagaalada si uu gashay iyo COVID-kii wixii ka dambeeyay shutdown iska gashay shaqo kama socon oo kiisas ay qabanaysa ma jiran marka Djibouti baa ka jirta hadda East Africa wax si toos ah Soomaalida oo aad u shaqeynayso inkastoo ayadana sanadkan qaybtiisii dambe October November December January way shaqeysay ilaa February way soo gaartay laakiin wixii ka dambeeyay xogaa kiisaska ay laftirkeeda holding ay galisay يعني interview badan ma aysan qaban dadka hadda guuleysta ka hadlaya Nairobi waa ka soo hadlay walaal Firdaws yani safaaradaas jaamkeedaas ka badan priority-na uma lahan Soomaalida yani aan dhahay DV program hadana Soomaalida aad baa meesha loogu dhibaa documents hadday tahay inaan balan heshan laftirkeeda waxay isaga baahan tahay xogaa time the case number yar aadan haysan oo case number hore aadan helin oo case fog aad tahay Nairobi option ma aha safaarada jaamkeeda yar yahay yaa la aadaa mar hadduu case-kaaga 35 hadduu ka korayo safaarad jaamkeeda yar yahay aa la aadaa because safaarad sida Nairobi oo kale haddaa la sugto ayada dhan waxay qabanaysaa cases yar dhowrkii bil waxaa laga yaabaa cases yar inay process karayso marka dhammaantiin waxaa idin rajeynayaa guul insha allah idinkan caawa natiijada ay soo baxayso waxay idin rajeynaynaa inuu ilaahay idinkooda gooleeyo qof walba oo dhalinyaro halkan ku jira hami uu leeyahay dhammaantiin hami aan leenahay qof walba waxa waaye wuxuu u xariistay programkan in riyo iyo gool uu leeyahay uu gaaro ilaahay dhammaan dhalinyarada kooda gooleeyo cid walba u xariisatay cid walba u haminayso waa u duceynaynaa insha allah inuu ilaahay idinka wada dhigo dhammaanteen guuleystayaasha علي صالح صاحب dad guuleysto sanad walba laga tagaa jiro maba ahan waxa sanadkii soo dhaafay because nimankan target ay leeyihiin 50000 wixii ka koreeyo xogaa kiisaskaas hayga oo kale unless qofka safaaradda iyo jaamir uusan ku mareynin dad badan ayagoo soo gaarin cut off uu ku dhaca September 30 hadii la gaaro waqtigu dhamaana dad badan interview helena waqtigu ku dhaca marka salaada qofkii may guuleysto kale September 30 24 soo interview helena hadii la gaaro way ka soconayaan ay dadka meeyda dambe ka sii dambeeyay guuleysan doona hadana waa shaqo bilaabi doona ama santiin ama santii Firdaws walaal hadii dokumentiyada saxiixin Djibouti safaarad xun ma aha ilaa xad inkastoo ay laftirkeeda culays uu ka haysto dhinaca Yemen oo kale oo Yemen dadka u dhasho dhan safaaradooda Sanaa ku taal maadaama ay xiran tahay waxay soo aadaan interview loogu soo qoraayay kan Djibouti marka xogaa culaysyadaas way jiraan iyo Ethiopiankii safaaradda Addis ay ka xirmatay oo yani way shaqaysaa laakiin immigrant visa ma yani xogaa processing ama lottery wax la xiriir ma samayso so ayamaha dab culaysyadaas ay la kulmaysaa iyada laftirkeeda laakiin safaarad fiican waaye haddii aad awoodeeda leedahay safaarad kale ta aadi kartaa oo for example waxa aadi kartaa meel ka baxsan oo kale haddii aad aadi kartaa Africa haddii ahaan lahayd India haddii tahay Bangladesh haddii Malaysia aadi kartid haddaa wadamadan khaliijka oo kale tagi karto Africa laftirkeeda safaarada aad u degan oo aad u fiican jiro wadan wadanad sida hadda aan iraado lameesay wadamadan dhexda bartamaha ku yaalo kaleeto sida Angola kale ama taxliilin doontaa طبعا
dad hore ku maray waxba raadin doontaa. laakiin anaga keliya waxaan ku leeyahay Nairobi uun keliya yuusan haliska ilaaliyo safaaradda, because waxay noqotay safaarad aada u liidato waxqabadkeeda, iyo soomaalidana si xun ay u tiriid garayaan, oo documentka soomaaliga qofka watabo yani weji wanaagsan kuma qaabilaan, oo yani visa inuu ka helo soomaaliga keliya visa ka heli kara Nairobi waa qofka family based immigrant ku socda ama loo dacwoonaa loo tiri haddaa tahay ahmiyad badan kuma siinaan. waxay ku leeyihin sorry documentskan ma aqoonsanin, inkastoo ay jiraan dad helay oo fiisayaasha ay siiyeen, laakiin aad bay u yidhi marka hore inaa balan heshaaba adag. Djibouti iyo Ethiopia labada way fiicnaa, laakiin Ethiopia shaqadeeda haddana iska joogsatay dagaalada awgood. haddii hadda shaqo bilaabaan way shaqeynayaan sanadka haddaa way dhaheen waa bilaabinaa waa sii wadinaa, laakiin nambar aada u yaray u shaqeeyaan. laakiin haddii sanadkan shaqo bilaabaan safaarad fiican waa idan. صحيح سو أفريقيا والو عادي يعني طبعا ورد سفارة مجرته ولا كره الأمور، لكن I don't know. لكن هذا أنت أي فيزا بحسه يو مجرته يعني واحد أو أنا كل كره سفارة في عندي فيزا بحسها مجرته وحاجة استاتيكالي ويب سايت وحاجة اللي في سفارة سنة كان أنت قبتين وكيس إمساء أبروفل له وفيزا هالشيء إمساء أي بي كبرته ولي هولدن كيس كودي هاي أوليري والدنا لا سو هذا تونا أي بي لكليه إمساء دنايل أمر رجبت قاعدتي ويب سايت لقى فيه أجره إن شاء الله هذا السود هاي تونا ويب سايت كاس مركز بيشيد أو تحليل سيد سفارة نيروبي فيري أنت يوديت إمساء جيبوتي فيري حافيرس سفارة هولدن كوتي تجاري يعني جس وحكوس وبحايو سفارة هاي ريد أو أبروفل كذا بدنيا هاي طبعا صدا يعني قمنا عاصر because هذا ممكن سلكتي نقطة ما يجري عندكم قصبة وقلته إلا عاو وأنا بحسابهم كارثة ورخصية بدن هذا وقتها كان عامل جرا قف كدور بلو حكوا تحليل كروه يستع إنك سوي في عندك قف إنه حلها رئيس كحرية عندنا for example مي وحمر يسا لح صح كل تقول يستي مي إسكال ما يسا طبعا جون هران تيجي وحرين كرتاكيس كذا intaas xog fiican oo kugu filan raadso haddii xataa DB aad waxba ka fahansaneen programka dhan hal mar soo fahmi kartaa bilowga dhammaad. fiidiyaal badanaa ku jiro YouTube-ka, anaga page-keena qoraallo fara badan ayaa yaallo oo aan horey u diyaarino, su-aalaha jawaab ku jiraan, group dad ay ku jiraan aad heli kartaa, anagana la soo xiriiri kartaa. dabcan markaa wixii adoo fahansan ayaa leedahay marka safaaradda hiblaayan raba inaa aado, so inaa wax taxliilisid oo 3-4 week aa qaadatid ilaa qaadatid waxba kaama dhibeyso. dadka qaar markay May select noqdaan August September buuxiyo yani qofku waxba ka maqnaan karo, baasaboor ka dhimanaan karo, xog baa ka maqnaan karto. foomka inaa markiiba yani habeenkaas ama usbuucaas ba xareysid oo wax badan ka qaldamaan hadhowna aad raadiso oo foomkii raba dib inaan u furo, hadhow furitaankan ay kale kuu furaayo safaaraddii haddaa hal mar doorato ay kale noqon inay kuu bedelaan. marka inta hadhow ka shaqeyn lahayd waxaa fiican horto xog raadi hel details kugu filan ka heshid saas u soo bax yani u xariis. New high school certificate Nairobi ku soo biyay with dhalasho Kenyan ah kabaano ma qaadanin baasaboor Soomaali haysta jaamacadda Soomaaliya dhamay hadhow high school hadday baran midib ayga imaanayo Michael Pro high school certificate Nairobi ku soo biyay. okay certificate ka Ismaaciil ma santa saaxib high school ka walta haduu mid sax ah oo Kenya ka samaysay saakooda hadda doo mid Kenyan haduu yahay oo high school Kenya kaga baxday school chance fiican haysataa Kenya dhexdeeda wax ku baratay safaaradda Nairobi laftirkeeda priority yani waxa ku haysataa
waa moo ay hubin karto shahaadadaada inay yani ku qanci karto. laakiin haddii shahaado feyga tahay oota haddii shahaado aan sax ahayn oo system ku jiran ay tahay waa dhibaato. haddii mid Soomaali ah ka wadid ma fahmin, laakiin haddii shahaado Kenyan ay tahay oo haddana aan systemkooda ku jirin isla Nairobi ma ka mari kartid oo xoogaa waa iska yara taagtaag aan fahamtay. jawaabtu waa caawa insha allah 7 fiidnimo bariga Afrika. افتح ما تنصح سفارة نيروبي بعد إلى هذا السكيل عليه وحكي له كسوهره. طبعا واحد عقباته يكتاج الماله يقصوا أفريقيا ودم بس جود أي شك وماله بدنا نسكتشره. لكن دقوا في الصومال جاي جيبوتي كده تاكيس كيسنا بلن وهلا دوكمنتس قوتنا صحيحين ويسينا في ذا إن شاء الله حبكم هلا وين. وقاعد جامكاس ومرة قار يمنتي أو قصو يرجبتي كبيان دورها حوجا يرى إلى فرس فاردو تك بلودي أو لسه وسفاردو ذاك الجرو أو حس ميان جيبوت أوريك سيد مرة حوجا كيس كاجا هدو يراها هي ولا جاي ومرة قارن وضاها أما تايم كانوا كعب كيا بيسد وما قلنا مركز أفريقيا ذاك العادي. لكن دي جيبوتي أو يعني أوكي جيبوتي هذا كيسس كيس في عنوان القرينسا شهادوينك لكن خوف في عن مرسينيس هذه شهادة صحتها يسكت. لكن دي شهادة شك وجو سفارة عندكم ينتك سومالي لقاه ونينو فوق أما إيش إذا سفوقه وين الأداء يعني كوس سفارة إيش إذا سفوق يالو شكر سومالي دوكومنتس كان سومالي كإيمانا وحي أولمي شهادوين كان كردت كجانبي وطن لكن لما كان أفريقيا جو وليبا إيست أفريقيا سفارة هدرس كان لا حكت النظر إنها يعني هذه الفانسية وحنا ويبارن inkastoo safaarada loo tagaysid ee documents kala tagaysid inay sax ahaatay waajib tahay mar walba oo ay lafskooda ma jiro safaarada iska ka documents kan iska qaadanayso documents ka walba la fiirinaya wixii cadeymo inuu ku diray. okay waxaa jiro marka waxay shahaado IGCE waaye dhalashada deedka isku mid ma aha -6kii aan ku sameeyay maanta. اسماعيل فهم صاحب سؤال مفهم هاي سكول سيرتيفيكيت نيروبي aan ku sameeyay soo dhahday dhalasho Kenyan ah kabaandho qaadanin mid dhalasho Kenyan okay. أنا documents ka awadato waa inay isleeyihiin baasaboorka awadatid iyo birth certificate ka awadatid isku wadan waa inay ahaadaan. birth certificate Kenya okay let me see Kenya ku dhalatay sax isbitaal ku yaala ku dhalatay birth certificate isbitaal ku sameeyay wax la garto laakiin birth certificate Kenya oo citizen Kenya inaad tahay sheegaysi passport Somali isqabanaan. by the way si good documents ka awadatid oo dhan safaarada la tagay soo inay isku dhalashay wax walba ahaadaan magacyadii taariikhaha waa inay isleeyihiin adoo birth certificate midda Kenyaanka marka laga soo tago oo Kenyaanka ay qaataan birth certificate oo istaalada ay sameeyaan haday tahay oo ana Kenya ku dhalatay cadeynayso laakiin aadan muwaadin Soomaali ay tahay passportkaaga dhalashada la tagi karto documents ka awadatana waa inay ismaaj gareynayaan xogooda isleeyihiin. waxaa ka baaranaysaa document website-ka aad ka fiirisay natiijada macnaha ka xareysay marka hore confirmation numberka linkiga ku jiro oo ku dhex qoran marka screenshot ka qaadanaysid website-ka ka xareysay dabcan fahmi kartaa dvprogram.state.gov intaas waa asxaabi mid kale idinkugu darayaa haddii kiiskaaga 30,000 uu ka kormaro oo aad guulaysato 35,000 uu ka koreeyo Asia iska cad
safaarada Asia waxaa arkaysaa Asia ku yaalla sida case 60,000 ah oo ballan xilli fiican helayo. Asia markaan ku leeyahay tusaale India kale qofka aada ama Bangladesh aada ama aada xataa Dooxa qofka tegi kara ama Qatar aada Malaysia queuega aada u yar wadamadaas queuegan wuu yaryahay. Imaaraadka kale dad badan ku mara jaanib badan ku nool ma ku talinahay laakiin waxaan ka wadaa queuega aada u yar wadamada Bangladesh India Pakistan waxaas oo dhan looma ogola loo tagay ma ku maraan immigrant visa kale iyo ardaynimo waa laga yaabaa laakiin safaaraddu waa iska xildo. KCC marka kayska markii process garaysa kaysaska oo dhan way fiirinaysaa safaarado badan oo marka waxaa jira inti oo waxay u shaqeeyaan rabo safaarad marka way fiirinaya inta kaysa ku qornaa la fiirinaya cases high marka sometimes 65 qof ahaa la soo qabanaya iyadoo bilihii ugu horreeyay sanadka la maraayo. marka safaaradii case walba ku qoran waa loo transfer garaynayaa haddii xataa uu high yahay. marka mar walba kayskaaga uu case number oo fahmi doonta dabcan haddii xataa hadda aan fahansaneyn case numberna inta badan waa fahansantahay maadaama muddo aan kasoo sheekeynaynay xogo badan oo ku saabsan aan meesha kusoo qornay. case numberkaaga hadduu high yahay safaarad jaamkeeda yar yahay aada si balan u hesho. tusaale aduu kayskaaga yahay 45,000 ama 42,000 ama 50,000 haddaad Djibouti qoratid ama Nairobi qoratid ama wadamadan kale dariska Afrika qoratid kaysaskii hayaan aada u badan waxay ku soconayaan marka visa bulletinka caadiga ah number si loo kala horeeyo wax ku wadayaan jam ma sameynayaan case fog ma soo qabanayaan. laakiin markaad tagtid wadamo dadkoodaba aysan ama limitka dadka xalinayaan aada u yaryahay kaysaska ay qabanayaan iska kooban yahay. Pakistan oo kale Islamabad wax yani dad ay u shaqeyso dadka waddanka u dhashay DVs eligible ma aha ardaynimo iyo dad isku dacwoonayo marka laga reebo. India sidoo kale wadamadan Bangladesh sidoo kale Malaysia kuwa Carabaha oo kale yani safaaradii cid u shaqeeyaan rabaan kaysaskii walba hadduu kayska fog yahay xataa waa hal soo transfer gareeyay laakiin kayska soo gudbay KCC markii uu dhac halkaas u diraysaa kayskaaga markii uu balana helo. laakiin imagine adoo weligaa loo tiri xarinaya ama markii aad islahayd sanadkan selectka noqotay kayskaaga suu Nairobi ama Djibouti u yaallo haddii waqti kugu dhaco September because kayskaaga 40 waaye ama 35 oo ka shisheeya content waaye wax priority kuma siinaya ninka intuu kayskaaga jam sameeyo soo qaado inta ka hooseysa ee waiting ku jirta badan. marka waa sababta Nairobi mar walba uga jam badan tahay safaaradaha kale wadamada u shaqeysa aad u badan ku dhawaad 5 iyo anaga ku jirno Soomaaliya Kenyaankii Rwanda maana Burundi waxay soo aadan halkan Uganda sidoo kale South Sudan way yimaadaan Nairobi ku nool haddana Sudan wayba si kala tagtay dad badan imaanaya East Africa dan kale. marka waxaan ka wada kayskaaga mar walba 20,000 25,000 soddon kor u sii kaco safaaradahan bariga Afrika xogaa iska qaabka wax u wadaan waa late laakiin safaarada MTA la raadso mar walbana kayskaaga hadduu horeeya xataa safaarad ay isleedahay waa keenaysaa la raadso because waxaan waa once a lifetime noloshaada waxa laga yaabaa mar keliya oo aad selectii noqotay waaye inaa nafta u hortaa inaa wax walba oo kayskaaga u qalma ah ku bixisaa inaa wax yani because waa one chance waaye you never know sanad kadib inuu Trump soo laaban doono haddana banki la soo celin doono. marka la guuleysto dhammaantiin xoogana hala raadsado intaas aad kugu daraa aad u mahadsantahay wixii su'aalaha soo qoran. سؤال سويتي waxaan ku weydiinayaa oo dhahay maxamed saxib waxaan ku weydiinayaa shahaad dugsi sare haddaan haysan oo haysto mid jaamacad bali weydiinayaa mid dugsi sare jaamacad si ku dhigata marka haddaad high school haysanin taas su'aal by the way okay jaamacad ka baxday nimankan jaamacad ma ku weydiinayaa waxaan ku weydiinayaa high school kaagi aaway high school ka waana u dhigtaa jaamacad waa iska support document shuruudii kamid ma aha kaliya laakiin waa qof wax barta tahay oo si caawinaysa oo ka qaadayaan koobi kala maxay laakiin shahaadada ay rabaan inay hubiyaan high school hadda haysato okay haddaad haysan laakiin jaamacad kaliya ma ku mari kartid
Nairobi saaxiib way iska dhib badan tahay. Nairobi dhibkeeda badan على isaga wareegsado. Marka saxaabi aad ma santiin waxaan rajeynayaa wax su'aalo kale muhiim ah hadaysan jirin caawa insha Allah kule laafna soo geli doonaa mar kale marka ugu horeysan website-ka iska jam mashquul waxa waa dadkii dhan rabo inay fiirsadaan natiijada muhiim ah inaa markii ku degdegto hadii Google waa dhib male ilaa caawa late ama tomorrow subax la sii insha Allah waa fiirsan kartaa mar walba natiijada isma bedelayso dadka adduunyada dhan rabaan marka hore inay fiiriyaan website-ka wuxuu noqonayaa down waxay ka dhigaan jam aad u jam gareynaa marka dhamaantiin caawa gool idin rajeynaya insha Allah case number waxa la hadda ma jiraan waa confirmation number waaye 24 oo ka bilaabanaya 2024 marka guulaysta kadib waa case number hele adoo ma santiin saaxiibyaal waqti baydin waxaan hado insha Allah live badan oo soo gali doonaa ayuu wax ka faa'iideen hadaysan wax su'aalo badan jirin oo ka sii baxaya أحمد صاحب بدي صاصة يعني وين يصلح هذا عندنا أو باسبور بدل عم نقول شو تصوص حقرت صوصة هو المقعد يعني difference information لما ربطي واحد ماشي على التجسد هو يفهم كده استوسيست هذا أكو قرط ومقعد ولا قلنا فهم كان هذا بروح عندهم فأقول صار وأنا هذا ماشي documents على التجسد أو قرنته waxaa hore loo kaliya hadii marka hore ku xariistay sababtoo hadii markii inta natiijada sugayso cunug ku dhashay wax ku darsanaysa kiiska gadaal laga daraado ilmo ku dhasho waa sidaas wala insha Allah hadii salaftii soo baxdo foomkana aan buuxiyo bixitaanka marka la gaaro shamsa ma santaalo marka foomka aad buuxisid aajir meel laga socdo kiiskaaga interview lagu balamin doonaa dabcan warqad aku soo dhici doonto email ku imaan doono marka hore kadibna meel waxa jira website-ka hadda natiijada ka arki doonto waxa lagu leeyahay fiiri halkaas warqad waxa ku soo dhici doonto balana safaaradana xilliga tagaysa ku qoran safaaradda tagaysa magaceeda yani qoratay dabcan iyo then interview ama la saadi fiisa ku sii hansaas oo baxaysa insha Allah wasdawta la dhib mal hawsh waa fahmi doontaa in tartiib marka natiijada fiiri hadii select lagu dhaho haddana wixii ka dambeeyo waa kaasii caawinayna insha Allah اوكي عرور هذا ku xariistay ma sha Allah hada carruurta marka hore ku xariisay markay ku soo baxdo ayagana foomka ay kula buuxin doona foomka baasaboorradooda iyo xogtooda gelin doonta waa markaasna interview markaan bariis waxa dhan way kula socdaan isku halkiisa tihiin waana isla baxaysan insha Allah waa isla socotaan halkiisa oo family isku qorantiin ولا مسكح وما سنت صاحب دي سوسي وكو بوحين كرتا شهادة سؤال لعنة سوكي واي وانا شهادين ولو مرة دمير بدنا كو مرتي جبوت هاتي تياتي مالك لتهاي وحكو حيران اني سوماليا فدرال اي حاتو يعني وزارة حبر الشهادة سوكي دوقف كبير لكن هرقيسة دوكومنتيدك صوبحو يدلشويكا يفرا بوليسكا داليرادة سيدة ugu maraayeen safaaradaha waana okay haddii USA cidina ku joogin may waa raadsanaysaa waa inaa heshaa address foomka markaa buuxinaysa address lagu weydiinayaa waana qasab walaal waa inaa heshaa oo maadsanta shahaado dugsi dhexe maya ma aqbalayaan markii hore waa ku xarayn kartaa waa iska dooran kartaa doorashada hore markaa xaraynaysa wax micno male
foomka dambe markaa buuxinaysid dugsiga iskoolka aa qoranaysid iyo waxaas iyo xogtaada markaasaa gelin doontaa. waana muhiim high school inaa haysato. primary ama dugsi dhexe haddaa la tagto kama aqbalayaan, waa ina ku diidaan fiisaha. waa inaa high school haysataa, dugsi sare shahaado 12aad waa inaa haysataa ama form 4. waa mahadsantahay walaal. saaxiib su-aashaas inaan ka jawaabaan u malaynayaa. shahaadada high schoolku waa qasab, xataa haddaad master PhD haddaa haysato they don't care waxaan kale ee kore ee aada qaadatay. basically ayaga high schoolkii kaa hubinayaan. high schoolkaaga hadduu okay yahay, adiga iyo qofka high school bas haysta iyo midka PhD haysta waa simateen. high schoolkaas ay ayaga rabaan. shahaadada sare ma fiirinayaan, dabcan way kaa qaadayaan, okay way ku caawinaysaa wixii waxbarasho sare, laakiin basically dugsiga sare ay hubinayaan, xoogana taasay saaraan. taas markay okay nahay, okay noqoto, inta kale macnaha waxay ku arkayaan yani ku sii support garaynaysaa hadii qof wax bartay jaamacadaada, markaas wax kaa weydiinayaan waxbarashadaada sare iyo meelihi ku qaadatay. laakiin waa muhiim dugsigaaga sare inaad wadatid. wayna ogyihiin dee qofkan high school Africa wax walbaa la sameyn karaa. jaamacadihii qofkii high school aan saxayn ama high school isagoo soo farsamay uu ku dhigan kara, laakiin way hubiyaan dugsiga sare muhiim ah. maxamed suleymaan saaxiib waa mahadsantahay. wuxuu dhahay gabar baan ku buuxsaday inaan isqabno mana isqabno haddii ay isoo baxdo dhamiyaa. horta wax hadda yani just inkastoo mar walba waxyaabaha fruudka ah ama waxyaabaha lagu sameeyo waxyaabahan aan runta ahay mar walba laga wanaagsan yahay, haddana haddiiba dhacday oo aad samaysaan oo selecti aad noqotaan, mar walbo guur saxa oo ay ku qanci karaan waa inuu ahaadaa wixiina. haddii warkaan waxaan inay sax yihiin oo guurkii cadeymihii warqadihii nikaaxa ee maxkamadda, sawiradii cadeymo aroosada idinkaga baahdaan, everything waxa waaye guurka sax ahaanshihiisa sida ayaga ugu qancaan ay ku xiranta qaabka wax idiin siin doonaan. waa mahadsan tahay. sayid cali xasan saaxib waa mahadsan tahay. haddii wixii khaladka erarka dhacay uu yahay bishay maalinta waa caadi. sanadka lafirkiisa dabcan haddii wax oo isku taariikh isku aan waqti badan u dhexayn ama wax weyn aysan ahayn, foomkan dambe horta waa ku sixi doontaa. oo wax walbo kaa qaldamay foomkana lagu sixi doonaa. laakiin xoogaa waxaa shaki keenaya taariikh gebi ahaanba tii hore aan ahayn oo mid cusub ahoo bishii maalintii waxoo dhan wada cusub yihiin xoogaa inaad qorato. laakiin qeyb ka mid ah taariikhdoo kaleeto haddii erar kaaga dhaco waa ku sixi kartaa, ama qalad uu kaaga dhaco waa ku sixi kartaa. foomkan dambe waa loo geliy. cadani waa maasanta saaxiib. differencega maxaa markaa xareynaysa maxaa kaa qaldamay, hadda maxaa rabtaa inaad dib ka saxdid? caqliga maaha waaye waa qaangaarta umaleyna markaa xareynaysa 17 jir 18 jir noqoto hadda 15 jir I don't know, waa iska kaftan taas hore waxa waaye. laakiin wuxuu dhahay su-aasha markaa xareysanaya caqli ma lahayn, hadda caqli yeeshay yaa umaleynaa sida u xariista. hadda ma fahmin hadda su-aashaas. walaal maskax waa mahadsan tahay. dugsi dhexe shuruudaha maba ka mid ahabo, meeshuu isaga qoran yahay dhibicaa saartay okay, maxaa uga xariisata laguma dhahay. laakiin dugsi sare waa inaad la timaadaa. dugsi dhexe laakiin haddaad la tagto waxba kuma siinayaan. naga raali way kuleeyihin waana kusoo celinayaan. lacagta fiisaha iyo waxaasna waa kaa qaadanayaan. sabab waqtina waa hortay, waxna kama helaysid. high school wax ka yar waxba la iskuma siiyo. dugsi sare waa inaad wadataa. waa mahadsantahay. midda dhexe lagama rabo ifaham. dugsi sare haddaa haysid shahaadada dugsi dhexe laisma weydiiyo. shahaadada ay kaa rabaan keliya waa dugsi sare. wixii kasii sareeyo iyo wixii ka hooseeyo haddaa xataa wadatid shahaadooyin fara badan oo high school ka sareeyo, it's okay. qof waxbartaa tahay, lagu arkaya ina waxa wadatid wax sax yihiin, haddana
lama dhahayo aawa shahaadooyinkii kale haddaad dugsi sare bas la tagtid. sidoo kale dugsi sare haddaa haysatid laguma weydiinayo primarygaaga aawa dugsi dhex laguma dhahayo. axmed mac waa mahadsan saaxiib. maya luqadda ingiliishka waajib maaha qofka loo tarmku luqadda waajibku maaha lagamana rabo. bal safaaradaha qaar xataa ay kaale interviewga dadka ku turjumo Soomaali ah. Djibouti kale haddaad tagto qof Soomaali ah joogo, Nairobi, Addis Ababa sidoo kale. safaaradaha kalena wax walbay kugu fahmi karaan iskula hadlaysaan oo yani just Englishka aad jajabsanayso iyo whatever ay ahaato. safaaradaha fog waaye waddanka ka fog kuwan dhow laakiin Soomaaliya ka shaqaysa. maasante okay hore سيد حساب رأي سؤال يسوع ديبتي جوراء سؤال يسوع ديبتي سيد علي وحير جوراء سؤال يسوع ديبتي وحنكو حريص أي تلاذي إن نكرو هاي أو المحيص لكن ولا يخباه دبنين كيجا ويسوون قلنا مقوله كرادي استوسي استوا ولا سؤال إسكا سؤال شهر تقف مركولو تري حرايو علمي صادق درصدي يعني هاتو لوتر marka xareyso laba qaab waa lagu ogolay ina qof gadaal kaga dartid. marka xareysay kadib ilmo ku dhashay waa ku dari kartaa. marka xareysay kadib qof ay guursatay ama gabar ama nin oo gabadh ay guursatay ama ninka gabar uu guursaday uu ku darsan karaa inta natiijada uu sugayay waa is guursanay oo dhigay. it's okay. haddana keeskan hadda uu su'aashu isoo weydiiyay yarkaan walaalkeena oo wax legit ah oo maangal ah كوس ilmaha asaga dhalay waxaa la rabaa laakiin ilmahaas inay ayada ku xareysatay marka hore sawirradooda ay gelisay xogtooda ay gelisay. haddii xogtooda gelisay guurkoodii hore oo ilmahan aabahood uu yahay oo sax uu yahay cadeymihii guurkoodii horena ay heli karaan ilmihii ahba cadeymo la dhisay cadeymo ilmihii ahba ilmo isku hayaan labada qof way isku laaban karaan. soo DS260 way ku tarsan kartaa laakiin waa inay soo xaqiijiyaan haddana guurkan dambe inay maxkamad furiinkoodii hore isku soo laabashadoodan dambe wixii oo dhan waa inay warqado maxkamadeed keenaan soo caddeeyaan. laakiin ilmihii waaweyn oo aanan foomka hore ee markii la xareyna lagu darin haddana ninkii gadaal lagaga daray ilmihii gadaal lagaga wada daray taasaa dhib ah. laakiin legit waa ay samayn kartaa moo caddeynay u baahan yihiin. laakiin ilmaha inuu asaga dhalay inay sax yihiin inuu guurkooda hore waxay ka heli karaan cadeymo ah kan dambe maxkamadii kala furiinka hore iyo isku soo laabashadan dambe waxaasoo dhan markay geeyaan way fahmi doonaan. nimankan bilaadan waaye wax ku wareysanaan oo qof bilaadan armaan saaxiib maba la gaarin natiijada maxaa confirmation ku sameynaya hadda 100 jeer gelisay ma helaysa natiijada waxay soo bixi doontaa caawa markii la gaaro 7 PM fiidkii ay soo baxay insha Allah bacda maghrib. markaasuu ku shaqeynaa confirmation numberka aad u maasantahay. okay Zainab waxay DNA ma iska qaadama DNA la iska ma qaado caafimaad caadi ala maraa checking ka caadiga ah qofka x-ray saaran feerihiisa TB waxaas ka baaraan xanuunadan kale sida hepatitis-ka nooca B oo kale ay ka baaraan cagaarshowga iyo syphilis waxa la dhahaa syphilis waxyaabahaas adiga waxyaabahaas bay fiiriyaan ay laftirkooda wax laga daweyn karo qofku daaweyn iska qaataa hadduu time space helayo interviewga u dhaxayso laakiin ma jiraan wax oo DNA ama santa سعيد صاحب ما صنت هدوك هلا ما حسمين نسا مركي عاون نتيجة صباح إن شاء الله ويب سايت القلب ماشي confirmation قال لي هوستيد حقوق قرن forget confirmation number مكان هذا حقوق دين دانا details كاجينا جلسيت مدعاء صدحان first name last name يو middle name كا مركي جلسيت سنة كيفيش مالن ترى لتو كويدين دانا إيميل كأكو حريصنا وكويدين دانا continue مركي هذا حقوق سؤالين دانا confirmation number كاجي سيدا سنة كهلي كرتا لكن وانا ايميل كاغا هيستيت مغاعسا او قرتي xogtiisa u qortay iyo dhanna waa ina sideed u galisaa xogti kale laga maro magacaaga saddexsa u qortay emailka ku qortay iyo taariikhda dhalashada inta saddex haysatid logitaanka wax macna ma sameeyna waa soo ceshan kartaa aad u maasanta
افتح وما سنت صاحب لبدا سنة خبرة أنا كصومالي أهان يعني ستاندرد كأيك إيران حوجا وحير وحملسا level ahaan shaqooyinka gudaha Soomaaliya marka la joogo haduusan NGO international ahayn lisay qof hada shirkadaha weyn oo kale hada qof hormuud kale uu shaqeynayo as qualified yani hormuud aftiga shaqaale cashier ahaa isna umeeda waxa way laakiin inaad tahay qof tusaale high technical ah engineer oo kale qof engineering fildigaas oo kale ku shaqeynayo ama dad yani by the way waxa jira wax website la dhaho ONET online oo qaybta Department of Labor oo Mareykanka wasaaradda raacsan oo shaqooyinka dhan ay ku jiraan level la isaga baahan yahay la level 46 yani instructionka oo DV ga markii la xareynayo la soo galiyay DV24 instruction PDF Google ku qor PDF kaas marka la soo degto DV24 instruction ka Google ku qorto PDF araacisid PDF ka ku soo baxay soo degso instructionada waxa akhrisaa marka qaybta waxbarashada iyo shaqada markuu maraayo link wuxuu ku siinaa ONET online la dhaho clicksi wuxuu ku geenaa website kooda wuxuu ku leeyahay marka shaqooyinka halkan ku jiro fiiri inay tahay shaqada aad qabanaysay si aad u ogaatid inaad qualified u tahay inaad yani shaqo la iman kartid so xogaa marka shaqooyinka aad fiirisid levelada ay rabaan oo kale aad uga hooseynaa mararka qaar taas waxay keenaysaa qofka Soomaaliga inuu oo haysto high school oo ay tahay optionka kaliya hadda anaka aan wax ku heli karno high school adoo haysto aan shaqo iska 2 sano caadi oo normal ah iska ama waxa haysto 10 sano iska shaqada caadi ah ku sii kabaysa documents kala haysta ku sii kabaysa jaacada bilooyin ama sanad ka qaadatay transcriptiga sii qaadanaysa waxaas la isku kabaa laakiin high school amar walba lagu dagaal tagaa way adag tahay marka dheer shaqo 2 sano oo Soomaaliya aan ka qaataan ku tagaa meesha hoga in la aqbal caadi waqti هذا ما سنت صاحب ودن كي أوفي عن interview وهذا أوش شيء ودن كفي عن مجرى لكن أضل ربعنا تحليل سد أو سفارة ده إيرون على سفارة ده سومالي بدن أيكم مرت سنة كهذا سفارة ده ويب سايت حاجة وصوري جتونا إن شاء الله statistically laga fiiriyo oo dadka hadda sanad walba guuleystay ay aad oo la socdaan safaaradaha high speed ka safaaradaha approval kooda badan yahay ko denial ka badan yahay ee diidmada badan waxa soo dhan marka aad ma san tahay laakiin wadan walba loo tariga isku sharciyan la maraa isku sharci baasaboorada wax walba macnaha waxaan ka wada waxbarashada isku siya qof walba looga rabaa wax walba waa standard qoran waayig سيد علاء قبتها مع دمي لكن عن شقين كون ورقة الشقة من غير أمي هذا هاي سكول هيستو عشان عضوا بهاي educational level واي لكن هذا هاي سكول بس هيستو enough شقة حتى أنا هيستقسم شقة واجب وما لغة إنجليش لقى مرة حتى هاي سكول كبحدي good to you أنا في ذا شيء وحق أولاد دق أهلا كل سلامة يا سجارة سيد أهلا كل سلامة وأنا كاغا مهد علنا وحاول صوت كاغا إيو برنامج هذا مرة بسان أو حرنايد إيو سجارة كل سلامة هذا وما سنتين مركز حاوي هذا وما سنتين أو إن شاء الله عاوة قفر بينو نقول دونه طبعا سلكتي ولا وذا ربعين لو وذا نقضو هذا sometimes dad badan aan nasiib ku saaciidi doonin oo wax waa iska lag qofkiisan u arkin marka end of the journey yani safarka meesha kuma dhamaanin October way imaanaysaa uu xareyn doonaa insha Allah fursadihiisa kale ee dunida oo iska badan yihiin oo tii qofkiina noloshiisa kale si wato wax walba okay aadan because 5 minutes ku xareysay waqti kaaga ma bixin qarash kaaga ma bixin uma safrin so hadii select lagu dhaho it's good hadii loo dhihi waayo intayna soo bixi weyday laakiin inaanan loo arkin oo maxay waxaan igu dhacayaan 8 years 75 waxa rabta xare aduu chance ku saacidin oo imaan doona maalinkaaga marka waxa idin wada rajeenayaa sida qulubteena ay rabtay ee khayrka noogu jiray wanaagsan inaan dhamaanteen wada helno anaga page-keena kale wixii consultancy ah oo awalna sidaan u soo wadnay waa sii wadi doonaa insha Allah shaqadeedii aan idin haynay iyo inaan mar walba fariimihiina gaarka ee message-ka aan ugu soo diraysana idinkaga jawaabno
wixii guideline ah ama xogo guud ama la talin ah qof walbo intiina soo baxda iyo intii kaleeta ee rabtay inay xogo badan naga sii ogaadaanbo aan hawshideeda uu sii wadno insha allah. DV24 waxaan rajeynaynaa dad badan inaan ka heli doono oo guuleystayaal ah oo number badan aan ku yeelan doono Soomaalida, because adduunyadoo dhan uu u dhexeeyaa. Waddan walba waxaa waye percentage isla eg ay xaq u leeyihin in la wada qaato. Applicanti badan yaa sanadkan lehna dad badan xareeyay. insha allah waxaan rajeynayaa marka inaan selective badan helno, dad badanna sanadkan ay safaaradaha dunida daafeeda ku kala yaala inoo kala aadaano ay helaan fiisiyaal, because qof walbo dhalinyaro ah xaq u leeyahay inuu select noqdo, xaq u leeyahay intaasuu sugayo inuu case uu success iyo goal ka gaaro. Marka aad u mahadsantiin. wixii su'aalo kale waa soo koobi doonaa insha allah. haddii jiraan hal iyo laba su'aalo kale aan sii raacin doonaa intaana ka bixin. Okay. سعيد wuxuu DV Lottery Somali fiisi waa loo diiday ayaan maqlay in badan sida Kenya, Djibouti, Ethiopia. horta DV program asagoo dhan wuxuu iska yahay lag. qofka markuu soo baxana safaaradda uu tago haddana wuxuu iska sii mari doonaa interview. waxa loo marsiinaa qofka, dadna waa inay fiisa helaan, dadna waayaan. marka that's waa wax iska caadi ah. kasoo safaaradaha la xulana ay ku xiran tahay Nairobi oo kale wax badan hadday tan idin soo sheegay waa hectic. safaaradu waxa way aad u dhib badan ay mudan tahay qofka Soomaaliga inuu ka wareegsado inta uu wadi karo. waa mahadsantiin. وإذن سلامي هول ودينا Somali Consultant DV Program. هذا ما سنته صاحب خاصة إنتي شاري جماعة وأكاد قادنا بشير صاحب هذا كو سلامة يا أختي كو عنا هذا دقن سيجارة كو سلامة صاحب أدي هذا أكاد قاد سلامت. شمس واحد هذا كندا إيو سويدن كورنا دام كنت ولا ما فاهمين waxaan ka hadlaynaa waa DV program waa lottery oo Mareykanka u gooni ah, laakiin Sweden iyo Canada maybe programo kale inay leeyihiin, laakiin waxa hadda aan programka aan ka hadlaynaa ayaga ma aha. ama santahay. Okay, wixii su'aalaha oo iska soo koobinaa muddo xoogaa ku jirnay, marka time-kiina waa iska waxa waaye waqti waa soo dhawaanaya. asxaabta 6 bil la sugayay waxaa saacadii ugu dambeeyay lagu jiraa. insha allah dhammaan waxaan u rajeynayaa in yani asxaabta dhan ay guuleystaan, because qof walba markuu xareynayo waa loo wada sinaa natiijada in select la noqdo iyo inaan la noqoninbo. 20 milyan around 17 milyan markay xareyso waa dareemi kartaa competitionka suu u badan yahay. waxaa loo baahan yahay in 55,000 kaliya ay tahay iyo inta yaroo back up loo qaadan doono iska badhi 87 kun 90 kun in la aqbali doono ama hundreds kale. so inta dambe backup marka laga tago 55,000 kan hore ee loogu talagalay fiisiyaasha out of 17 million waa dareemi kartaa tartanka si uu adag yahay. marka haddii gacanta nagu dhici weydana dee samarka waxa waaye October waqti dheer ma ahan, waa xareynaynaa insha allah. laakiin life mar walba inaysan noloshii aysan noqonin qofku uusan isdhiibin. waa iska lucky. berri ku caawinaysaa, maanta qof kale walaalkii caawinaysaa. macnaha waxaan ka wadaa 20 milyan oo xareysoo dhan selective wada noqon doonaan. intaas waxay qabaan ba anakana ka mid nahay. marka waxaan laakiin si jecelnahay oo rajeynaynaa in la wada guuleysto insha allah. wana wada guuleysanaa duleed. هذا ما سنتين صاحب wada guuleysta. waqtigu hay'ad saacido dhammaan waxa waaye wixii tala ah iyo tusaaleyn ah heegan baa u nahay mar walba anaka page-keenana wuxuu yani waxaan ugu talagalnay oo dhalinyarada har habeen soo taagan ee page-ka hawshiisa wado ay kugu helayeen waxa waaye inay xogtii u baahnaydeen sida ugu saxsan yani ugu hufan baaritaan badan iyo maaragtay xogo sax ah ee dadkii ilaahay ay quseen laga soo qaaday lagu keeno ilaa kiiskiina oo dhammaad iyo success iyo goal ku dhammaadana aan mar walba idin garab joogno. anaka diyaar ah heegan ah aadna waa idinkaga mahad celinaynaa mar walba sidaan la socotaan iyo barnaamijyadeena sida ugu xiran tihiin.
asxaab badanna fariimay nagala soo xiriiraan. Sometimes waxaa dhacda fariimay inay aad isaga badan yihiin oo aadan ka wada jawaabin. Marka ayadana markaan fursad u helno waa idinkaga soo jawaabi doonaa insha allah. marka DV24 qof walba resultigiisa inuu helo waqti kooban ka dhiman. talaabada ugu horeysa qofka laga rabo inuu sameeyo marka uu select noqdana horeyna waa uga hadlay dabcan waxaa waaye haddii aadan baasboor lahayn inaad baasboor samaysatid. dabcan Soomaalida ku xareysay ama Kenyan ama Ethiopia waxa ku xareysay yani baasboorka nationality waddanka ku xareysatay inaad haysatid. sababtoo October hadduu dambeysay baasboor ugu maxareyn haddii aad lahayd good then inaadan DS260 adoon khibrad fiican u lahayn aadan ku degdegin inaad isla same day ama weekaas oo aad xareyso because safaaradda markaad tagto waxa lagu weydiin doono waa foomkaas aad hadda buuxin doonto markaad select noqotid wixii aad qortay. mararka qaar waxaa dhacaysa marka qofkii markuu foomka xareeyo wuxuu soo error iyo yani waxyaabo uu qaldo markii uu soo xasuusan haddana wuxuu ku leeyahay unlock waa inaad dana KCC qoladii foomamka xaggaas yani lala xiriira ay dib kugu furaan haddana wax laga bedelo haddana foomkii dhowrka foomka waxaa arkaysaa marka intaasoo jeer qofkii uu furay. laakiin marka hore hadda aad u taxliilisid ogtahay yani documentskaagii inay ku dhammaystiray sida waxbarashadii baasaboorkaagii waxaagii oo dhan aa haysatid high schoolkaagii waxaagii aa qori doontaa waxbarashadaadii foomkaa gelin doontaa baasaboor numberkaagii marka wax walba markay ku dhammaystiran yihiin aadna ogtahay safaaradda ay tahay inaad ku martid waxaa arkaysaa يعني سفارة هيبلان دورتي أما هذا مركي لحد أكتوبر سبتمبر لما رأي على ويرا وسفارة ثانية محاولة دقتي أو هالإي بدل هذا أنلوك هلا ديب هالله فرفوم كي وحي هلا هذا وحاسودن وحكي بد بعد كرتا مركور إنها حب إنها أذو حب وقالها فوم كاغا حريستي up to date اسكدكتد أو كيس كاغا مرور بوقتها ماشو هذا انترفيو ماشا كومريسي دوكومنتي ذا هيستد وحلقة قربو waxalba ay ku yani okay dokumentiyada qaar gadaal ka samaysan doontaa sida warqadda CID da kaleeto ama police clearance waxay dhahaan birth certificate ka dhalashada kale hadii isku diyaarsan waa samaysan doontaa dib ma lahan laakiin waxaan ka wadaa waxyaabaha asaasiga inaad ogtahay inaad haystay baasaboorkaaga inaad haysatid high schoolkaaga oo kaleeto waxbarashada markaa qoraysid oo kaleeto high schoolkaaga oo kaleeto oo ready ku yahay ama ogtahay date-kii wixii iskoolka xilliga dhamaysay then safaaradii aad go'aansan lahayd because safaaradda foomku ka buuxinaysaa lagu leeyahay safaaradda aragti inaad martid waa inaad halkan ka doorataa. waxyaabahaas markaa ka gudubtid wixii ka dambeeyo iska sii fahmi doontaan. waxaa jira wax la yidhahdo visa plate inaa jiro kiiska meeshuu maraayo kiisaska ay tahay in lasoo daayo agostoo bilaaban doona dabcan yani kiisaska DV24 in loo shaqeeyo xogtu yani qofkii update ahaan wuu fahamsan yahay qofkii kalena ma uu kusii dhex jiro mar walba wax badan oo cusub uu barto. أنا أيضا شغالين دونا إن شاء الله مربنا أبدي ذلك اللي دونا أنتي نقول ستين وسيجارة ولا سي شغالين دونا أنا كأول أصحابتي أنتي هذا كله بدن سجود يعني حاجة أصوات قبل جرني هذا أنتي سلكتي كنقطة ربط سيجارة يعني لورا ديل جريا مكيسس كود سيجارة لوجا عاوية مرة بديارة ونهاي هذا ما سنتين بريورتي وحاسكله سؤالها wixii maskaxdiina iimaankiina ka guuxayeen oo iisoo qori doontaan insha allah waa inaad kasii jawaabi doonaa. الحمد لله إذا عاد حي إقرأ أوكي صح وحي ويدي دوكومنتس دوكومنتيو دير هذا مية دتك ويديان نيروبي سوماليلاند يعني شهادة كوتاش سوماليلاند ما أقنصين شهادة أوكي هذا ما سنتاين دوكومنتس كورت سومالي مركي لقاها اللايو سيجود يعني مريكنكا أما سفاردها حتى ملكها حتى وحيها حتى إلى حد هو بني مرسيان لكن هذا Somaliland qofku ku soo qaata ama federaalka uu wato isku si wala dhil kareenay kuma dhahan marka waa in Soomaali federaalka wasaaradda waxbarashada waa inay soo martaa hadda soo fahma dhahan because wixii oo dhan mess up isku dhaxayacsan xoogaa ilaa hadda documentskeeni ma jiro record sax oo loogu aadi karo ay aqoonsan yihiin waa ay si aaminsan ilaa hadda
91 wixii ka dambeeyay dokumentiyada Soomaaliya kasoo baxo inaysan aqoonsanin ayaga ugu qoran systemkooda. By the way, dokumentiyada Hargeysa ama dhinaca Somaliland ka imaanayo waa good, waa lagu maraa dhalinyarada sidooda ku maraan. Nairobi oo kale qof markuu ku marayo dokumentiyo dheeraad ah oo ay codsadaan oo safaaradaha kale ka duwan badanaa ma jirto, marka laga reebo warqad ayaga ay dhahaan affidavit of support oo qofkan Soomaaliga markuu dhalanayo yani dhalashadiisa uu wato, waxay dhahaan waxaa kusoo lifaaqdaa warqadda affidavit oo dhaar yani qofkan notayo kusoo qorayaa 2 qof oo markhaati ah camal baa waxay leeyihiin oo qofkan anaka naqaano xilligaas inuu dhashay waa sax, warqadiisa dhalashada taariikhda ku qoran waxaas waa good way notayada saxiixayso. Marka Nairobi taas baan raaciyaa documentska wixii kale waa waxa instructionada ku qoran high schoolkii warqadda dhalashada dambi la'aanta meesha ka imaanayso oo wadan kastoo 6 bilood ku soo nooleed waa sida caadiga ah yaa laga rabaa inaad ka haysatid warqadda dambi la'aanta. tusaale Ethiopia kale waxaa ku nooleed sanad 6 bil maadaama ay ka bantay waxay ku dhaayeen soo samayso. Soomaaliya kale 16 sano markay gaartay wixii ka dambeeyay wadamada ay ku nooleed 16 markay gaartay wixii ka dambeeyay wadamada ay ku nooleed 6 bil ka badan wadanka ay joogtay kala imoo ku leeyihiin. Marka laga reebo dadka ardayda tusaale China ka wax soo baratay waa ka soo tagtay dhowr sano joogtay. So China inta aadid warqad oo dambi la'aan inaad ka soo sameey karin oo intaas kaliya u safri karin ay ku ogyihiin marka ma ku dhahayno China tag ama wadankii tag ku laabay ka soo sameey warqadaas. Waxyaabahaas oo kale waxyaabo exceptional ah laakiin sida caadiga wadamada aad ku soo nooleed waa laga rabaa. Marka aan soo koobo warqadda dhalashada dambi la'aanta baasaboorka iyo waxbarashada oo high school ugu muhiimsan yahay safaarado dhan ka siman. Nairobi markay imaado warqadaas oo kale affidavit of support oo dhalashada lagu sii kabo maadaama documents Soomaaliga oo yani aqoonsigiisa ay ka aad ugu dhiban yihiin saas ay dadka ugu xiraan. waa mahadsantahay. إيمان وما سنتهاي إيمان اسمعنا وما سنتهاي شهادة فيك سيدي كوغانا يعني مرة بشهادوينك انت أيك أودو دا وي قاب كستي أوه بين كراني مرسيان أما هسكو داين إني إسكول كي تسكريبت كاغد دران أما هسكو داين إسكول كلاحر أما هسكو داين إني أدو سيكستي تهاي waxaan ku talinaynaa maadaama anaga waxa aan iibeyno ama meesha aan joognay inaan xog u gudbino dadka mar walba wax feeg ah kulma talino qofka intuu ka fogaan karo documents ka falsification ka waana iska ilaaliya haddii ku marto okay haddii adiga is leedahay just waxay ku qabanaysaa waa gooni laakiin anaga dad page ahaan waxa u sameysana qofka inaan dadka ku wacyi gelin oo documentiyada waa falsification waa sameyn kartaan documenti cadalshada waa ku mari kartaan ما ديه كرنا وحلو بينا وحصح هذا عبد الرحمن ولا هي شهادة هدوسن قف كيسني قسم يعني إنه سمس شهادته معها واحد كان اسكيال ما وحي مركي الله بهذا الصوبوت هو الاسك سمي سنة طبعا لكن قف إنه هاي سكول هسه طبعا ها وصح هي واحد هذا دوكيمنتس كعافيمات كسو هذا qofka markuu kiiskiisa oo balan helo oo balantii warqadii loo soo diro safaaradda intuusan tagin waqti kooban ay siinayaan bil ama 40 beri siinayaan intaas waxa lagu talagalay inuu ku maro caafimaadkan wuxuu ka mari doonaa magaalada interview uu ku maray safaaradda ay ku taalo salaada Djibouti ku maris marka Djibouti tagtid interviewgan uu ka dhiman yahay ugu yaraan ama 2 week ay Djibouti tagi doontaa caafimaadkaas mari doontaa caafimaadkaaga qoladaas ayaga markay caafimaad ku marsiin ayaga safaaradda u diri doono marka qaabkaasi wax u dhacaan warqadda balanta marka haysatid wadanka interview ka maraysa oo sii duulaysaa waqti interviewga ka horeeya caafimaadka isbitaalada waxaa jira safaarad walba u qoondeysan yani ama ay ugu talagashay in caafimaadka ay uu ku maro qofka safaaradda website-keeda arki doontaa hay'adahaas wixii xog ah ka heli doontaa oo website-yada yani isbitaalada safaaraddaas raacsan ee wada shaqeynta ay leedahay kuwaas caafimaadka laga maraa check-up ay kugu sameynayaan baaritaan ay ku marsiinayaan report-kaagana ayaga safaaradda u diraa inkastoo ay jiraan isbitaalada qaar oo report-ka qofka ayaga siiya oo asaga qofkii qaadanaya documenti ahaan xiran ay u dhiibaan envelope xiran ay u dhiibaan qofkaas safaaradda geenaya aad u mahadsantahay
iimaan kusoo laabtay wuxuu dhahay shahaado high school ah laakiin diini ah ka waran. Shahaadada high school inay tahay ayaga u qoran standard ahaanna ay tahay shahaado 4 sano ah. Form 4 waxay anaga aan dhahno waaye dugsi sare hadday tahay okay waay. Haddaa leedahay maadooyinka ku qoran ma ahan chemistry biology waxaas ma aha, ayaga ma jiro fixed standard oo high school ay rabaan ayaga oo wadankaas wasaaraddiisa waxbarashada ama systemkiisa u diiwaan gashan iskoolkan 4 sano waaye qofkan dugsi sare soo dhameeyay. Haddii maadooyinkaas ku qoran af carabi ay ku wada qorayn ama shahaado carabi ay tahayna in legal translation ama interpreter u geysid oo luqadda Englishka loo bedelo oo shahaadada form noocaas ay wadato ama labada luqadood bay iskula qoran yihiin. Ayaga marka hadduu yahay laakiin macad caadi oo macadyada diiniga oo labada sano ah oo wixii ayaga 2 sano ama diploma kale ma qaadanayaan. Diploma high school ka sareyso oo shahaado dugsi sare qaadatay kadib diploma 2 sano jaamacadda qaadatay ama diploma iskool kale ka qaadatay macnaha college kale oo gooni, laakiin diploma dugsi sare ah 2 years ma yeelayaan. Waxay ka rabaan standard form 4 4 sano high school ah oo nidaam ah hadduu yahay way qaadanaa. luqadda Englishkana waa inuu ku qornaado shahaadada ama labada luqadood ama 3 Soomaali Carabi English ama English Soomaali marubina English laga dhaxwayn. Haddii documents English uusan ahayna legal translation xarumo waxaa jiro waxyaabaha dokumentiyada legalka ama turjumo sida taasoo kaleeto warqadaha sharciyada sida notayooyinka waxa ka soo baxo adoo magaalada meesha interviewga ku marayso ama wadankaaga intaad ka tagin waxaas sii turjumi doontaa. Su'aasha intaas uga jawaabaya waa inuu high school ahaada. Maxamed su'aalaha jawaaboodina ku dheeraana soo koobi doonaa qof walba waxaan siin doonaa waqti yar kooban si dadka inta dhiman ugu gaarsiiyo. Waxa dhahay Ghana ka waran. Ghana soo ku tagi karaa wallahi ku tagitaanka dee immigration-ka iyo nidaamka iyo adaa laga rabaa walaal inaad sii baarbaartid. Anaga kaliya waxaan wixii qofkii oo loo tiri la xiriir baan kala talinaa, laakiin arrimaha socdaalka oo kaleeto immigration-ka wadankaas iyo qaabka fiisayaasha loo raadiyo dabcan ayaga adaa sii baari kartid ama qolooyinka agensiyaasha ee dokumentiyadaas oo kaleeto fiisayaasha xareeya kala xiriiri doontaa. lima fudud sidoo ugu dhaca qofka wareysiga wuxuu ugu dhici karaa qaab walba wixii aad sheegaysid inaad wixii aad wadato inaad ka been sheegaysid documents ka wadato inaad leedahay form waxa ku soo qortay DSO iyo waxa markii lagu wareysanayo difference ahadan waxyaalahaas oo dhan dokumentiyada la imaanayso kale wax falsa inay yihiin oo ilaa xad markay isku dayaan inay hubiyaan ay yani qaab badan jiro interviewga waxa lagu marsiinayo waa in xog gudaha ku jirta ee waxaan soo qortay ka badan waa in laga helo fact marka okay taas waaye. دكتور عبد الكريم عادن على الأداء وما صنتها صاحب أداء مضن. Thank you. Okay. سؤالها سوق من خارج مدينة كوريسي هذا يعني. DSO سويسري مركز سلكت الغداء كدي بحس وقتي أنت لاقي قاعدين ساينا وحاجة راح كيس نمبر كذا مرة بترسلني سا. مركي أكتوبر لقى دتك هو رأي انترفيو مريتونه أغسطس على سوداء. أغسطس مركي حوجانيسا أغسطس صوصعته واحد شغلة دمي مركز سلكت الأولى أغسطس صوصعته حوجانيسا أنت نمبر إيه مريتونه أكتوبر سبتمبر حوجانيسا أنت نمبر إيه نوفمبر مريتونه أكتوبر حوجانيسا أنت نمبر إيه ديسمبر مريتونه قلول بحا لسي أغادا بال يو 8 شهور أما هذه مدبلة أو دحيس باي ذا واي أدو حسودن waxa ogaan visa bulletin waxa la dhahay jiro aadna u sii sharxi doona horena oo sharaxnay oo page-kan uu ku jira qoraal badan ka sameeynay visa bulletin kaas yaa markaa fahanto waxa ogaanaysaa numberka aad tahay case numberka aad tahay iyo xilliga la gaarayo okay by the way taas wixii ka dambeeyana waxa waaye sii fahmi doontaa marka dad waxay mari doonaan May dambe dad waxay mari doonaan June dambe August sanadka dambe dad mari doonaan depend case qofka uu noqon doono insha Allah. Okay, هذا documents Somaliland ما أقبليان
waan ka soo hadlay in badan dokumentiyada Soomaaliya ka imaan oo dhan waa isugu mid ayag waa qolayaan kawar haddii magaca afraad aan ka dhigo last name muhiimadda waxaa waaye baasaboorka sida kugu qoran inuu faylku kugu qoran yahay يعني إن قابك سلكتي أو نقطي يمجع باسبورك وقرن يسوى فقسيين هذه حرفية وحكا قلتي هنا فهم كانوا صحي دونتا عبد الرحمن حولاد إنجليش يتعقون ترجمان ميلك رئيس وأهلا بس ترجمان أوكي وهو سامع I hope إن هذا اللي مقلع Okay. هذا عادي عليه مقلة طبعا Soomaali ma sii joogi karaa dhaytay oo kiiskayga la gaaray Soomaali waa joogi kartaa kuma qasbanin waddanka inaad sii tagtid intii oo balanta ay lees kor marka balantaada hesha aadi kartaa waddanka interview ku maris okay Soomaali inta laga qaadanaa Soomaali waxa laga qaadanaa dabcan waxa la ogaan doonaa bisha markii May natiijada soo baxdo June aakhirkeeda ilaa July nambarada xilligaas la ogaanaa la soo publish karay laakiin hadda ma jirto cid ku dhahayso number hebel intaas Soomaali laga qaadanaa ma jirto baasaboor la'aan xariistay oo kiimiyaysa baasaboor la'aan dadka dhan xariisanay hadda marka guulaysta laga rabo baasaboor in la yimaado aad ma santahay codkayga kor u qaadayo ma santahay saaxiib ay karaale marka hore codkaygu hoosay but okay okay safaaradaha dadka joogo documents ka qaadayo miyay kugu cunsurayaan kala muslimnimo may wax oo racism ama kala soocid ama cunsuriyeen ma ka jirto safaaradda dadkana oo simeeyeen just anaka waxaanay documents keena wax iska yihiin sida loo hubiyo aad u liidato yani just aqoonsiga heli karana aad u yar marka badanaa waxa waaye qaab noocaas in oo xogaa naloo yara liido oo dokumentiyadii lama aqoonsan waa macquul laakiin waxa muslimnimo iyo la xiriira ma sanadkii hore around 400 adiga iyo xogaa tira number aan 500 gaaraynin mar 215 sanadkii hore 217 adoo waliba ka isku xiran 500 waa gaari laana sanadahan dadka qaar oo Ethiopia kala dirsana la around 3000 helan Kenya kala 2000 jajab 200 because ayaga numberka xareeyad badan markii wadankan 2 milyan markii xareyso number badan helaan anaga dadka xareeyo already umrina 100,000 xataa kuma dhawaanabo 40,000 hada gaarna ama nasiib lehna 40,000 oo 20 milyan lagu dhex daayay maxaa ka sugay marka meeqa xamala soo bixi karto oo number aad u yar natiijada caawa la soo deynaa insha Allah 7 fiidnimo okay meeqa saacad ayaa ka dhiman inuu furmo caawa furmo doona insha Allah geeska Afrika waqtiga markuu yahay 7 fiidnimo hal saaca oo 7 intaas waa aad u maasantahay okay ilmi saaxiib wasi joogi kartaa visa ku siinayaan date expire leeyahay 6 bilood ay ku siiyaan 6 bilood sii joogi kartaa mararka qaar caafimaadkaaga haduu waqti dhow expire noqon rabo oo caafimaadka waqti hore asii martay ama 4 bilood ama 3 bilood wixii caafimaad ka dhiman visa intaas waqtigiisa ay ku siinayaan marka date expire visa soo noqonayo ka hor rabo inaad soo gasho wadanka gorma la shaacin wax ku qoran may lixdeeda caawa 7 fiidnimo markay tahay maqrib kadib la shaacina natiijada qoys ay caawa wali waxa uu ahayd 5 oo ahayd saacad isma bedelan kol dhow isbedeshay
so bari duhurka markay ayaga u tahay laakiin anaga african ay u tahay east african ay u tahay 7 fiidnimo insha allah xilligaas la shaacin doona natiijada. saaxiibadii ay kala duwan yihiin dhalashada baasaboorka iyo midda DV lottery ugu qoran maxaan sameeyaa haddaysan kala duwanaansho badan oo difference badan aysan ahayn ama bisha ama maalintii waxay kaa qaldan yihiin foomkan dambe markaad buuxinayso waxaa qortaa sida baasaboorka u qoran u geli xogta taasaa muhiim ah. asxaabiga mahadsantiin waxaan rajeynayaa su-aalo badan jiran oo isku soo laaban doonaa dabcan natiijada xilligeeda khayr aa idiin rajeynayaa bejkiina waaye insha allah mar walba nagu xirnaada lasoo booqda anakana sida ugu macquulsan iyo waxaa waaye waqti walba waxaan idiin horeynaa insha allah inaa xogaha ugu macquulsan ee u baahantay inaan idiin soo gudbino insha allah. aad waa mahadsantiin su-aalaha kale haddaysan jirin waa soo koobaya waa kasii baxayaa lifeka natiijada xilligeedana kulliga waa isku soo laaban doonaa insha allah. messengerka gmail okay no hadda ku fahmo messageka okay fariinta macnaha gmail ma kusoo dhacaysaa markaan shaaci may confirmation numberkii lagu siiyey ama codekii lagu siiyey markaa xareysay kaasaa natiijada ku fiirsan doontaa kaasaana lagu heli doonaa insha allah. fariimaha waa fiirin doonaa aada mahadsantahay cilmi saaxiib iimaan xoogaa su-aalahan yani waxaa u maleysaa messengerka oo kale fariimaha nooga imaanayna aad bay u badan yihiin sometimes haddii oo aan idinkaga soo jawaab weyno dad bil-aadan aan nahay dabcan iska qof walba iska dareemi karaa howlay waxbaa iska jiri kara marka inaan waqti u wada heli weynaa laga yaaba qof walba fariintiisa inaan furno oo ka jawaabno marka waa idinka raali gelinaynaa insha allah. aad waa mahadsantiin saaxiibayaal waqtigaa idiin macnaado dhammaantiin guula idiin rajeynayaa natiijada waxaan idiin rajeynayaa inaad qof walba select noqdo insha allah. wada shaqeyn wacan wixii su-aala ana brograamo dambe ay isugu imaan doonaa ilaahay dhammaanteen hayna wada fududeeyo qof walbana wax uu rabo iyo wuxuu rajeynayo ilaahay uu sahlo isma dhaafno. aad ay u mahadsantihiin daawashadiina iyo la socodkiina brograamadeena waa idin salaamayaa. asalaamu calaykum.